Soomaaliya dawlad ma laha ha ka dhabaynin haddii aad jidkaad ku socoto ku sii socoto xaqiiqatan Soomaaliya waxay ku tagaysaa jid khaldan ama jid soo jarmay iyo ku tagaysaa halkaasna waxa rumoobaya hadalkiisa madaxweynahaas oo yiri Soomaaliya dawlad kama jirto arinta saxda ah waxay tahay inaad noqoto oday Soomaaliyeed inaad noqoto madaxweyne tanaasulo inaad noqoto oo dadkaaga isku haysato duruufo badan iyo xaalad adag yaa la galay cadow shisheeyaan saynaa dadkaaga u yeero doorashadaani kaliya ma qaban kartid doorasho aan lagula lahayn oo aan qayb laga ahayn oo Soomaali u dhamayn oo wada ogol aan ahayn consensus aan ahayn madaxweynuhu ma qaban kartid madaxweynuhu bisad ha noqon anaa soo arkay meeshaas ha noqonin halkaas ha aadi halkaas wax fiican ma aha madaxweynuhu bisad baad noqonaysaa annagana kuma rabno inaad bisad noqoto